bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada daawadayaal warqodobadaad ku daawad doontaan waxaa ugu dooroon odayaasha galmudug ee soo xulaya xildhibaanada galmudug oo saaka ay bilaabatay xareyntooda ciidamo aad u fara badan oo Itoobiyaan ah oo xalay ilaa shalay ku qulqulaya magaalada Dhuusamareeb iyo ahlu sunno shaki badan ka muujisay ciidamada Itoobiyaanka ah madasha xisbiyada qaran oo ashkata ka dhan ah fargelinta ciidamada Itoobiya u dirtay Abiy Ahmed xildhibaanada dawladda ee ka soo jeeda galmudug oo ku horyimid ciidamada Itoobiya ay dawladdu geysay galmudug igad oo dooratay hoggaan cusub Soomaaliya Kenya iyo Djibouti oo laga dhex bixiyay kursigan iyo waxaad maqli doontaan weerar xiriir la leh argagixiso ka dhacay London taariikhdu waxay tahay 30 bisha 11 sanadka 2019 intaad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal waxaa saaka lagu wadaa in magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ay ka bilaabato xareynta odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada labaad ee cusub ee galmudug maanta oo Sabtida taariikhduna ay tahay 30 bisha 11 sanadka 2019 ayaa guddiga farsamada maamul dhisidda galmudug horey ay u magacowday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya waxay warbaahinta u sheegeen maanta la xareynayo dhaqanka galmudug si ay u dardargeliyaan soo xulista xildhibaanada maamulkaas soo xulista xildhibaanada galmudug ay waxa ka soo horjeeda culimada ahlu sunna wal jameeca oo ka biyadiidan sida dawladda Soomaaliya ay wada dhismaha galmudug ahlu sunna ayaa dhankeeda wada si ay u soo xuli lahayd xildhibaanada galmudug waxaana ay dhankeeda horey u magacowday guddiga farsamada maamul dhisidda galmudug ahlu sunna iyo dawladda ayaa labada dhinac waxa u dhaxeeya khilaaf adag oo maalinta ka dambaysa ka sii daraya dawladda Soomaaliya ayaa labadii maalin la soo dhaafay waxa ay galmudug ku daabuleysay magaalooyin kamid ah ciidamo Itoobiyaan ah oo aad u fara badan watana gaadiidka dagaalka ciidamadan ayaa laga cabsi qabaa inay xoog ku soo qabtaan madaxda ahlu sunna ee ka biyadiidan dhismaha galmudug ee Dhuusamareeb ku sugan sida hogaamiyaha guud ee ahlu sunna Macalin Maxamuud iyo madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Mashaakir Cali Xasan ciidamada Itoobiya ayaa sidaan oo kale dawladda Soomaaliya waxa ay ugu adeegsatay sanadkii aan soo dhaafnay 2018 doorashadii ka dhacday koonfur galbeed waxaana doorashada ku soo baxay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran oo ay dawladda Soomaaliya wadatay faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa ciidamo aad u tiro badan oo Itoobiyaan ah oo gaaray Dhuusamareeb wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in ciidamada militariga Itoobiya oo aan qayb ka ahayn xoogagga nabad ilaalinta midowga Afrika ay gaareen magaaladaasi ciidamadan ku hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan watana gaadiidka xamuulka ciidamada ee uuraalada loo yaqaan ayaa waxay gaareen garoonka Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusamareeb iyagoo ku biiraya ciidamada Djibouti ee ku sugnaa halkaasi militariga Itoobiya ayaa Khamiistii soo dhex maray magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud kadib markii ay ka soo talaabeen xuduudda labada dal ciidan kale oo Itoobiyaan ayaa waxa la soo sheegay inay ku wajahan yihiin magaalada Dhuusamareeb si amniga magaalada u xoojiyaan dawladda Soomaaliya waxa ay dareen ka muujinaysaa inay ahlu sunna caqabad ku noqoto amniga magaalada Dhuusamareeb iyo doorashooyinka baarlamaanka iyo midka madaxtooyada ee galmudug madaxda ahlu sunna waxay dhawaan iska diideen inay ka qayb qaataan dhismaha galmudugta cusub sabab ku aadan iyagoo aan ku andacoonaya dawladda Soomaaliya oo aan meel marin heshiiskii ay bartamii sanadkan wada gaareen qodobada ay labada dhinac ku heshiiyeen ayaa waxa ku jira qodobo qeexaya in ahlu sunna 35 xubnood oo xildhibaan ah laga sii doono baarlamaanka cusub ee galmudug tiyo ay dib uga laabatay dawladda federaalka Soomaaliya inkastoo ahlu sunnada galmudug aan wali aysan qaadin talaabooyin lidi ku ah dhismaha galmudugta cusub ayaa waxa meesha laga saari karin suurtagalnimada inay caqabad ku noqon karto dhismaha maamulkaasi madasha xisbiyada qaran ayaa qoraal culus u dirtay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa qoraal ay u direen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxay walaac uga muujiyeen faragelinta rabshadaha wadata ay ciidamada Itoobiya ku hayaan siyaasadda gudaha Soomaaliya madasha ayaa xusay xarigii 6 November ay ciidamada Itoobiya kula kaceen 3 gudoomiye degmo oo kamid ahaa kuwa gobolka Gadeey koonfurta Soomaaliya kuwaas oo la sii daayay kadib markii lagu qasbay inay ka soo horjeestaan maamulka Jubbaland madasha ayaa sidoo kale ku eedeysay ciidamada Itoobiya in 19 bishaan ay soo istaageen in madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan uu gudaha u galo magaalada Beledxaawe ee gobolka Gado waxaana dhacdooyinkaas ka sii horeeyay sida qoraalka lagu yiri isku daygii laga hortagay ay ciidamada Itoobiya ku doonayeen inay Kismaayo ku soo galaan 19 Agoosto si ay faragelin ugu sameeyaan doorashada Jubbaland una xaqiijiyaan in musharax hore loo qorsheeyo ku guuleysto
madasha xisbiyada ayaa sidoo kale ciidamada Itoobiya ku eedeysay inay afduubteen doorashadii koonfur galbeed ee bishii December sanadkii tagay 2018 taasoo dhalisay dad shacab ah lagu xasuuqo Baydhabo oo taageerayaal waarow xilliga aan qorinay warqadan waxa ciidamada u qalabeysan oo Itoobiyaan aan kamid ahayn AMISOM la geeyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug si faragelin lagu sameeyo doorashada soo socota loona xaqiijiyo guusha musharax horey loo ogaa ayaa lagu yiri qoraalka madasha xisbiyada qaran dhammaan dhacdooyinkan kor ku xusanayay madasha sheegtay inay xadgudub ku yihiin xeerarka caalamiga ee heshiiska nabad ilaalinta dalka madasha xisbiyada qaran ayaa ugu baaqday Abiy Ahmed inuu dareen u yeesho dhacdooyinkan isla markaana wax ka qabto si degdeg ah oo ka aragti bixinaysa Itoobiyada cusub dhinaca kale xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya deegaan doorashadooda tahay Galmudug ayaa ku hor yimid in dowladda Soomaaliya iyo ciidamada Itoobiya u adeegsato doorashada la filayo inay ka dhacdo Galmudug xildhibaan Axmed Macalin Fiqo oo kamid ah madasha xisbiyada qaran ayaa aad u dhaliilay adeegsiga madaxweyne Farmaajo ee ciidamada Itoobiya kadib markii shalay ciidamada Itoobiyaan ay gaareen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi xildhibaan Fiqo ayaa qoraal uu soo dhigay Facebook-giisa ku yiri madaxweyne Farmaajo ciidan waxa uu ugu jecel yahay ciidanka Itoobiya dal loo safrana waxa uu ugu jecel yahay Itoobiya sanadkan kaliya in ka badan 5 jeer ayuu isaga daba noqday Itoobiya gobolada dalka uu madaxda ka yahay goor ugu dambeysay booqashadooda lama garanayo marka laga reebo beledweyne uu ku sugnaa 2 saacadood oo lugaha biyaha fatahaadaha uu soo geliyay xildhibaan Fiqo ayaa sheegay in ciidamada Itoobiyaanka ay Dhuusamareeb la geeyay ay daliil cad u tahay sida uu Farmaajo dalkiisa iyo dadkiisa ugu lugeeyo ciidamada dal kale ogolaanshihiisa inay ku qabsadaan magaalooyin Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo ayaa horay ciidamada Itoobiya ugu adeegsaday doorashadii koonfur galbeed ee Baydhabo wuxuu sidoo kale isku dayay inuu adeegsado tan Jubbaland balse waxa ka hortagay Axmed Madoobe Fiqo ayaa sheegay inaysan jirin baahi loo qabo in ciidamada Itoobiya la geeyo Dhuusamareeb Farmaajo cidna lagama aqbali doono dalkan in ciidan iyo lacag shisheeye si jujuub ah ugu qasbo isagoo ay cadaatay in wadaniyadiisii halkudhigyada ahayd ay ka shifantay cid kasta oo wadaniyadii erayo wanaagsan ku taageertayna ay arkaan shalay in madaxweyne Farmaajo la soo baxay dhaqankii qabqablayaashii dagaalka oo kale oo mar walba dalka u soo horkici jiray ciidamada Itoobiyaan ah koor intii bishii Febraayo sanadkii 2017 lama dooran madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo waxa uu ahaa siyaasi Soomaalida ka gaday inuu necib yahay shisheeyaha gaar ahaan Itoobiya waxa uu marar badan wareysi uu bixiyay ku sheegay in Itoobiya ay taacada hukuumadda Soomaaliya isla markaana aysan ahayn marnaba ciidankeeda ay joogaan Soomaaliya si kastaba markii uu xukunka qabtay kadib dhammaan mowqifyadiisii hore way isbedeleen waxa uu dowladda Itoobiya u gacan geliyay Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa halgamaa Soomaaliyeed waxa uu aqbalay joogitaanka ciidamada Itoobiya oo bilaabay inuu dana siyaasadeed u adeegsado waxaana kadib uu Itoobiya ka dhigtay isbahaysi igad ayaa dooratay hoggaan cusub Soomaaliya Kenya iyo Djibouti oo laga dhexbixiyay urur goboleedka igad ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalle Malug u doortay inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee ururka go'aanka lagu doortay Hamduug oo ku dhisnaa heshiis ay gaareen dhinacyada ayaa ka dhacay magaalada Addis Ababa oo madaxda ururka ay ku shirsan yihiin waxaana loo arkaa mid xal ah oo xilkan looga dhexbixiyay dalalka Kenya Djibouti iyo Soomaaliya oo aad isku hayay caasimadda online ayaa qortay khilaaf u dhaxeeya Djibouti iyo Kenya ay hogaamin karto in labadooduba iyo Soomaaliyaba ay ku waayaan in madaxdoodu ay bedelaan gudoomiyaha xilka ka degaya Abiy Ahmed Soomaaliya iyo Djibouti oo aad iskaga soo horjeeday in hoggaanka ururka ay qabato Kenya ayaa diiday inay mowqifkooda bedelaan Hamduug ayaa hoggaanka ururka kala wareegay Itoobiya oo haysay tan iyo sanadii 2010 Suudaan ayaa xilkan hay doonta muddo sanad ah taasi oo ra'iisul wasaare Hamduug sii doonta saameyn cusub bilada kadib markii uu noqday madaxda dowladda ee ku meel gaarka ay Suudaan kadib xilkii tuuristii madaxweyne Umar Xasan al-Bashir Abiy Ahmed ayaa kursiga ku fadhiyay tan iyo markii ay dowladdu la wareegay bishii Abriil ee sanadkii 2018 Itoobiya ayaa waxa xilka hoggaanka igad tan iyo 2010 u hayay ra'iisul wasaarihii ka horreeyay Abiy Ahmed ee Xeela Maryam Disaliin iyo Milna Salaawi igad ayaa ka cabsi qabtay in haddii kursiga la siiyo Kenya iyada oo ay diidan yihiin Soomaaliya iyo Djibouti ay xiisad hor leh ka sii dhex abuuri karto ururka waxaana taasi sababta keentay in la siiyo Suudaan
markaana warkii dibadda warar dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar la xiriira argagixiso ka dhacay London weerar midiyeen ah oo ay boolisku sheegeen inuu ahaa weerar argagixiso xiriir leh ayaa ka dhacay buundada magaalada London booliska ayaa sheegay in lagu yeeray weerarkan abaar 2 duhurnimo dhowr qof ayaa la tuuriyay waxaana muuqaalo la soo dubay muujinayeen dhowr qof oo weeraraya ninka la rumaysan yahay inuu yahay kan weerarka midida soo qaaday booliska kadib goobta soo gaaray ayaa toogtay oo dilay ninkii weerarka soo qaaday 5 qof oo kamid ah dadka la tuuriyay ayaa sidoo kale la sheegay inay dhaawac yihiin ka hor intaan la toogan ninka weerarka soo qaaday ayaa qof kamid ah dadkii isku dayay inay ka hortagaan waxa uu ku qaaday mindi ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa sheegay in lagu soo wargeliyay dhacdadan waxaana uu joojiyay olole doorasho uu ka waday deegaan doorashadiisa Expac isagoo dib ugu laabtay Westminster weerarkan ayaa yimid toddobaadyo kadib markii hoos loo dhigay heerka halista argagixiso UK waxa sidoo kale weerarkan imaanaya 2 sano iyo bar kadib weerar argagixiso ee ka dhacay buundada London halkaas oo 3 nin ay ku dileen 8 qof isla markaana ku dhaawaceen 48 kale daawadayaal waana intaa warkii aad kala socoteen